wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaysa wasaaradda dastuurka federaalka ayaa kulan wacyigelin ah waxa ay la qaateen bulshada ku nool magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle sidoo ku soo waramayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Cusmaan Wadani. kulankan ay sida wadajirka ay u soo qaban qaabiyeen wasaaradda dastuurka dawladda Soomaaliya iyo midda dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa ujeedkiisu ah wacyigelinta bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle iyo sida ay kaga qayb qaadan karaan qaabjirka dastuurka dalka. agaasimaha waaxda wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahiyay ujeedka kulankan. barnaamijkan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 maalin ah oo maanta ay kow noo tahay 1 Maarch 2020 ilaa 3 Maarch waxaanu ku soo bandhigi doonaa cutubiyada dib u eegista lagu sameeyay oo ay nala joogaan khubaro ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dastuurka iyo arrimaha cadaaladda ee heer federaal iyo guddiga doorashooyinka qaranka. waxaan idin qeybiyay ajandaha oo aad haysataan 16 cutub ee dib u eegista lagu sameeyay inaad ogaataan qodobada aad isleedihiin waxay u baahnaayeen in wax laga yiraahdo. xildhibaan Saadiq Mukhtaar wasiiru dawlaha wasaaradda dastuurka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa bulshada dardaaran u jeediyay waxa uu ka codsaday in ay ka qayb qaataan qabyaatirka dastuurka dalka. dastuurku ku meel gaarku wuxuu uga bixi karaa in bulshada sidaan oo kaleentood loola tashto loo keeno fikradoodana ay ku aruuriyaan maadaama qeexitaanka dastuurka uu yahay heshiis bulsho. hadda dastuurka aan ku dhaqanno ma ahan dastuur dhammaystir, waa heshiis siyaasadeed. wuxuu ka bixi karaa marka heshiiskaas siyaasadeed in bulshadu qaybaheeda kala duwan fikradeeda ay ku aruuriso, aqoontooda ay ku aruuriso, wixii ay ka qabtana ay sheegto. bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ee maanta ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo waxa ay weydiiyeen mas'uuliyiinta ka socotay dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Hirshabelle. aniga waxaan rabaa in la cadeeyo maxaa hor taagan in lagu cadeeyo dastuurka qoondada haweenka. waxaan aragnaa maalmahan dambe madaxda isteediyada qaar inay la tirsanayaan madaxweynaha qaranka Soomaaliya. ma jira miyaa qodob dastuuri oo kala saaro madaxweyne federaal iyo madaxweyne maxalliga heer state wax kala xadiyo oo saaro oo ku qoran dastuurka. waxaa jira wadamo aan derisnahay dastuurkooda kuma qorna qoondo haween kuma qorna haddana boqolkiiba 53 haweenka ayaa buuxiyay meel kasta. waxaa loo baahan yahay horta wax la idiin siiyo xuquuqa u leeyihiin dastuurka ku qormi doontaa laakiin dadaal dheeri inaad muujisaan ayaa looga baahan yahay. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha.